وحويان شير دن أو أورسان أو وحي هالكا كصوب حي بريناية شركة سوحان الدنيا هاي وحبك بتشران وحكت شران متشران لأنه ما أوصنها شركة صوب حي ريركا أو رجي شقada laha aanay joogin buu ahaa salaadiintii ma joogin suldaan qura baa joogay iyo laba caaqil biciida halkan uu ku dhan yahay markaa waxaanu leenahay kaa waxba kama jiraan wuxuuna noqon aanu ku dhawaaqaynaa shir December goortay doonto ha noqotee shir December noqda oo reerku u diyaar yahay oo u diyaar garoobo oo si walba u diyaara waxaan saboodsanahay oo aan raacsanahay oo aan aad u soo dhaweynayaa uguna hambalhaynaya madax dhaqameedka beesha in ay ka ilaaliyaan in ay shirka beeshu uu ku milmo waqti siyaasadeed iyadoo hawlo badan oo qarankan muhiim u yahayna uu jiro oo dadkii loo baahan yahay xilli ka soo kabasho abaareed ramadaan lagu jiro bil cibaadada lagu jiro muxuu ahaa arintii ugu muhiimsanayd oo bariyahan qarankan mashruuci ugu weynaay ay muxuu ahaa qarankan muxuu ahaa ay wadeen oo ahaa kan muxuu ahaa diiwaan gelinta Somaliland Today warka ay qortay cidna soo dirtay ma jirto waa meel ka dhac uu ku sameeyay jiridada editorkeedu ama qofka qoray dhaqanka reerka iyo reerkan biciida weyne waa meel ka dhac uu ku sameeyay uu yiraahdo cid baa soo dirtay ina xaashi baa soo diray ina xaashina nama soo dirin ina calina nama soo dirin annagay tahay inaanu masayrkayga ka hadalno masayrkayagii baanu ka hadalno iyo sida loo qabanayo waxaan leeyahay arintaas waxay u baahan tahay in dhulka la dhigo oo aad nagu raacdaan waqtiga shirka loogu talagalay ee la cilaamiyay ee salaadiintii cilaamisay ee maayiradii cilaamiyeen ee xildhibaanadii fadhiyaan jariidan Somaliland ee ka hadashay arintan maxaan ku dhahdayay shirka lagu dhawaaqay iyo arrimahan ay saareen isma qabtaan waxaan leeyahay jirradaas waanu beeninaynaa afkaygan ku beeninaynaa inaan waxba ka jirin waxa ay qortay waxyaalaha uu arrintii dhiciska ahayd ee shalay dhacday ay keentay waxa ka mid ah been abuur Abdullaahi Maxamed Ducaalo oo iska maqan Maxamuud Xaashiyo maanta ah wasiirka koowaad ee reerka ayaa labadii sawir sidaa la isu soo dhinac dhigay inan journalist ah baa isu soo dhinac dhigay wuxuu ka dhigay arrin siyaasadeed iyo niman is haya waa been arrinkaasi waa laba nin oo reerka ah tashada Abdullaahi Maxamed Ducaale minka sababuu joogaa tashada isku garaada shirka reerkana labaduba waa og yihiin